بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كسر دوال إن شاء الله تعالى ودرس جيني اللحاد إيو سفوينك الحمد لله إنك رجع على جربا أنتوا نقولسن كهار يا أنتوا مركو قولسة ذا كدبنا إن شاء الله تعالى سكبر نبرة دي لا سفوينك اسمه كل قناة مسمية وأنا سفوينك وحوي وتضبيط تمنك السفاء نقولي لجربه ay dumarku jecel yihiin in ragga ku qaataan ama ay ogol yihiin inay helaan ilaahay jalla wa ala inuu siiyo rag sifooyinka ku dhaqma. alxamdulillah sidii ugu horeysay waxaan soo sheegnay 10 sifo oo sifo loo baahan yahay ninka ragga inuu la yimaado. maanta insha Allah ta'ala waxaanu aadaynaa hadii ilaahay nafta noo daayo sifadii 11aad iyo tii 12aad. Allahumma salli ala Muhammad. sifada 11aad waxa weeye ay gabadh walba hameyso ay gabadh walba ay rabto inay ninka ka hesho waa sifada la yiraahdaa maxaa kula ujeedo iyo go'aan adag inuu ninka ragga lahaado. go'aan iyo ujeedo adag oo muxuuna go'aankaasi u leeyahay go'aan inuu rabo iyo ujeedo inuu leeyahay reer inuu dhiso mas'uuliyad inuu qaado caa'ilad inuu ka warhayo inuu reer daryeelo inuu reer kalgacayl tuso inuu reer ku kalsoonaado inuu reer la xiriiro intii oo dhan go'aan leh ay jecel. ninka ragana waxa la yiri waa inuu haduu rabo inuu go'aan yeesho go'aan adag ninka leh waa ninka daa'iman wa abad waa leeyahay qofku inuu fikrad dheer lahaado laakiin waa qofka mar walba xiriirkiisu yahay sideebaan imika arintana ku jiro sidaan u toosiya ka fikirey hadii aan qaado mas'uuliyadda reerka reer hadii ilaahay isiiyo wanaagsan maxaa la iga rabaa inaan qabto ujeedadeedu og maxaan u guursanaya hadii aan guursado maxaa la iga rabaa markii la iga rabo maxaan ku dhahdaa sideebaan u dhaqaaleeyaa reerka sideebaan uga warhayaa sideebaan maxaan ku dhahdaa aan u habeeyaa ninka noocaas go'aanka dhabta leh anin maxaan ku raadayay waan galaya waan ka soo baxaya ma waa inuu lahaadaa go'aan adag waan gali doonaa hadii aan guursadana waan dhaqi doonaa reerka hadii aan dhaqana waxaan ugu dadaali doonaa inaan 100% aan ka soo baxo anigu waxaan mas'uulka ah waa taas markaas waxa la leeyahay وإنه هذا وأرن كوبي تبنات صفة كوبي تبنات وحوي نينك قان كله وحلي وانينك مرك وجو حال كوجو كوراي طلبنا وإنه هذا مربع هدو قان كي قاري وحال كي وجوجي وقبنا يشقدين وإنه وح أرن كليات وكل دقائق وهل كان وحكسمين هل كان وحكسمين تتكلف ريربان لسيادي waxa hoos yimaado dhan waxa dhinacyada ka wada yimaado dhan boo aynay noqdaan ujeedadu reerkaasi sidaan u dhisi lahaa ilaahay buu baryayaa uu shaqaynayaa uu shaqo tagayaa waxbuu qabanayaa intii oo dhanna go'aankiisa waxa weeye reerkii sideebaan u dhaqaalayaa sideebaan u dhisa nin go'aan leh arrinkaas ayaa qof walba way ku hamiyeedaa inay yeelato qofkaasi 5 arrimood laga rabaa ninka go'aan kale ninka go'aan kale waa ninka markuu meesha uu joogo ama xaalad uu ku jiro inuu ka warhayo xaaladaasi sideebaan u dhameeyaa waa nin xaaladii uu ku jiray raba inuu shaqadeeda qabto iyo waxa u baahan tahay iyo wixii la xiriira tarabaadna waa inuu ahaada mid go'aan arin kama dambaysa oo shaqadaas ku qabta oo joogta حاليا يركز أي بمعنى تركيز وحوي وإنه محاول هذا تركيز على شيء واحد أرن كلياته أرن قصد حدا وحل ليه وإنه هذا نن حالة أو كجرة وحي لحدي إنه بدل كرم يعني بدل كذا وإنه لهذا عودي إنه محاول هذا دبعت هذا يجرته دبعت هذا سدي ووضحها إنه كده دال وانيل أرن قصد هذا أرن قصد هذا وانيل مر والبا له reerkayga maxaan ku caawiyaa maxaan ku qabtaa waa arrimaha ninka go'aan kale laga rabo 5 arrimood waa inuu bartaa sidii uu sameeyay arinta afraad waa nin mar walba khayrka u jecel reerkiisa waa ninka arrinka ashanaadna waa inuu arrimahaas afarta
mar walba uu amaamkiisa halkiisa noqdaa ka shaqeeya wixii imikadan joogto ah uu la sugin berritoolan qabanaya bedelaada uu bedelaya maaha bedelaada berritoolan bedeli doonaan ka fax waa inuu ka baxa uu yidhahdaa imikadan baan anigu awood u lahay han bedelay sifadaas waa sifada ninka maxaan kula ujeedada leh ee go-aan buuxa leh ayaa laga helay waa sifada 11 sifada 12 waa nin isku kalsoon banaanka waxa kama sugayo isaga isku kalsoon ilaahay jalla wa uu og yahay muxuu isku kalsoon yahay wuxuu og yahay awoodda uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo qaayaha uu leeyahay ayuu yaqaanaa tiibu markaasi isagoo ilaahay tala saaranaya allahumma lakal hamd isagoo ilaahay tala saaranaya ayuu ku dhaqaaqaya waa dadaalaya wuu og yahay wanaag badan baa hadda markaasi waxa dhacda in isagoo og awoodda ilaahay siiyay iyo qudrada ilaahay siiyay uu isku kalsoon yahay haddana og wixii ka hor imanayana siduu difaaci lahaa iskaga difaaci lahaa ay bimacnaa waxa kale uu yaqaanaa waxa ducfigiisa waxa quwadiisa waxa awoodda uu ku leeyahay iyo wuxuu ku liito oo kala yaqaan wuxuu ku liitana ka dheeraanay wuxuu ku awoodda ku leeyahayna xooga saaray haddii wax uga yimaadaan oo wax walba mar walba isaga naftiisa yaqaan arrintu waa halkaas labada sifo ayaa ninka ragga la rabo in uu reer dhiso waa inuu lahaadaa waa sifada 11 iyo sifada 2 to 11 waxa weeye عزيمه وينو لهذا وجده وينو لهذا وكل قينيو ريركا وكل سدونه الماء وكورينيو عدي محاو كل هذا سيد وقبنيو انو يقانو وقتي وجوغي انا بريتوله سوغيني اللهم لك الحمد ارنك كلام محاو كل هذا الله بيتبنان waxa way waa nin isagu isku kalsoon ضعف isku ma arko inuu awood leeyahay arka inuu kalsoon yahay wuxuu isku kalsoon inuu wax qaban karo inuu wax bedeli karo inuu wax dhicin karo inuu wax u sheegi karo inuu wax maxaan ku dhaaday inuu wax maqli karo intii oo dhan inuu maxaan ku dhaaday wanaajin karo aamin marka insha Allah taala darsigan waa darsigeeni waxa weeye 11 sifadii 11 iyo tii 12 sifadii darsigan waa darsigii lixaad ee ragga maxay dumarku ku xoshaan ay darka maxay dumarku ku xushaan haddaan dul marno insha Allah taala darsiyadii hore waxa weeye qofku waa inuu lahaada ninka ragga waa inuu lahaada ilaahay ka cabsi waa inuu lahaada inuu khayr u jecel yahay reerkiisa wanaag inuu jecel arinka sadaan waa nin oo inuu ahaada nin ixtiraam iyo maamuus leh oo reerka maamuusa arinka falaad nin farax badan inuu noqdo oo mar walba reerkiisa raba inuu la ciyaaro raba inuu la qoslo raba inuu maxaan ku dhaaday inuu si fiican u soo dhaweey tashana waxa inuu ahaada nin maqal wanaagsan talixaad waa inuu ahaada nin maxaan ku dhahay og wixii ka socda meesha foojigan ka toddobaad waa inuu noqdaa nin aabba ah masalaya aabbanimo waa inay nin ka muuqato u noqdo markuu guriga soo galo inuu mar walba ka warhayo reerka uu yidhaah aabbanimadiisi inuu muujiyo talixaad waa inuu daacad u noqdaa مدير طاعة وحو قبني ودنبا الى هدرتي وقبتها او اوغادا انه waxaan isaga ku waajibto oo ka shaqeynay Allahu akbar tasagaalaadna waxa weeynin qalbi furan qalbi wanaagsan tatobanaadna waxaan leeyahay waa nin uu ahaada nin soo jiidasho leh qurux mar walba isqurxiya mar walba dadaala inuu noqdo nin dumarku waxay ka helaan nin inuu ragga ka dhex muuqdo inka odayga qaba marka intaas insha Allah taala darsigeena bariyan waa soo yareynaa ilaahay idankii si aan uga faa'iideysano marka darsiga maanta wuxuu ahaa kii 11 iyo kii 12 ka 11 in azima leh in go'aan adag leh in ujeeda leh talabiyadana waxa weeye waa nin isagu isku kalsoon ilaahan ka soo gaaray insha Allah taala darsiga soo socda إلهي جل وعلا وحن إلهي كبر إلهي نوافعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.